On Cable TV. maxkamadda sare ee Puntland ayaa ayday xukunka 3 sane kuwaas oo u geystay Caaisha Ilyas Aadan horaantii birihii la soo dhaafay kufsi iyo dil u geystay magaalada Gaalkacyo. 3 sane oo kala ahaa Cabdishakuur Maxamed Dige, Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame iyo Cabdisalaan Cabdiraxmaan Warsame oo maxkamaddii koowaad iyo maxkamaddii racfaanku hore ugu xukumeen dil toogasho ayaa waxay maxkamadda sare ayday xukunkii maxkamadii hore kuwaas oo ahaa dil toogasho. Gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda sare ee Puntland Ciise Maxamed ayaa ku dhawaaqay xukunka kiiskan Caaisha Ilyas Aadan. markay aragtay maxkamaddu dhammaan dukumeentiyada dacwada ku jira, markay aragtay xukunka maxkamadda darajada koowaad ee ku taariikhaysan 27 bishii shanaad 2019, markay aragtay buugga baarista DNA natiijada ka soo baxday dhimashada marxuumad Caaisha Ilyas, maxkamaddu markay aragtay warqadda ku taariikhaysan 25 bisha 2019 ee dhaawac muujinta ah ka soo baxday isbitaalka guud ee Gaalkacyo, maxkamaddu markay dhageysatay Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame inuu maxkamadda horteeda ka qirtay inuu kufsaday marxuumad Caaisha Ilyas Aadan qiraarkaas oo waafaqsan qodobka 149 xeerka xadka ciqaabta Soomaaliyeed. maxkamaddu markay dhageysatay Cabdishakuur Maxamed Dige in maxkamadda horteeda uu ka qirtay inuu diyaarinayay qabrigii marxuumad Caaisha Ilyas Aadan lagu aas lahaa. xukunka maxkamadda sidaa darteed maxkamaddu waxay xukuntay sida soo socota. maxkamaddu waxay diiday cabashada ay soo qaateen Cabdisalaan Cabdiraxmaan Warsame. maxkamaddu waxay ayday xukunka tirsigiisu yahay ra'ga na 115/2019 kana soona baxay 3 bishii 6 2019. maxkamaddu waxay cuskatay shareecada islaamka iyo qodobada qaanuunka suurat Maa'ida aayad 33, suurat Baqara 177 garsoorayaasha maxkamadda sare Nuur Ciise Maxamed gudoomiye wuu saxiixay, Axmed Haadi Aadan Yuusuf xubin wuu saxiixay, Cabdiqani Diriir Cawn xubin wuu saxiixay, Cabdullaahi Cismaan Maxamuud wuu saxiixay. kiiskan Allah u naxariista Caaisha Ilyas Aadan ayaa dacwadiisu waxay socotay muddo dheer iyadoo waxgaradka iyo shacabka ku dhaqan Puntland indhaha ku hayeen halka uu ku biyo shuban doono kiiskan Caaisha Ilyas Aadan. Cabdishakuur Yaasiin Aadan, wararka Hon Cable, Garow. adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab. haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.